war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano Africom ayaa lagu faahfaahiyay duqeyn dhinaca cirka ah oo Mareykanka ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Bari ee maamulka Puntland. Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya ay 27 bisha Julaay duqeyn dhinaca cirka ah ay ka fuliyeen buuraha Goolis isla markaana ay la beegsadeen xubno ka tirsan Daacishta Soomaaliya. Weerarkaasi ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen hal xubin oo ka tirsanaa Daacish isla markaana sidoo kale ay baaritaan ku sameyn doonaan haddii dad rayid ah ay wax ku noqdeen duqeyntaasi. Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalk Soomaaliya ilaa inta laga wiiqayo awoodda Al-Shabaab. Warkaas ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa ku soo aadaya xilli Sabtidii toddobaadkan ee warbaahinta Soomaaliya ay baahisay in duqeyn Mareykanka uu ka fuliyay buuraha Goolis lagu dilay xubin ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano Africom ayaa loo soo magacaabay taliyo cusub oo bedelay taliyihii hore kaasi oo dhowaan soo gaari doona magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Qays, Kalson TV, Muqdisho.